asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada dhammaantiin meel walba aad joogtaan. qof ka mid a asxaabteenna ayaa na soo weydiiyey su-aal ku saabsan sidee ayuu ku bilowday dagaalkii Qadaafi iyo Maxamed Siyaad Barre. su-aashaas markii aan soo baarnay oo dad kala duwan iyo buwaagta aan kasoo baarnana waxaan idinsoo gudbinaynaa xogtaan oo aan kusoo ogaanay sida dagaalka labada nin uu ku bilowday. dagaalka ama khilaafka u dhexeeyey Generaal Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo Muammar al-Qadaafi hogaamiyihii Liibiya ma ahayn dagaal toos ah oo laba ciidan ka dhex qarxay, balse wuxuu ahaa tartan siyaasadeed iyo khilaaf shaqsiyadeed oo aad u qoto dheer muddana soo jiray. midda koowaad horta mid waa inaad fahantaa 1969kii ayay labadoodaba qabsadeen Soomaaliya iyo Liibiya. liibiyan wuxuu qabsaday 1969kii, Soomaaliyana Siyaad Barre wuxuu qabsaday 1969kii. 1969kii ilaa iyo 1977dii labada hogaamiye waxay ahaayeen kuwo leh xiriir toos ah. shirarka midowga Afrikaan isku dhinac fadhiista, mar walbana ka hadli jiray danaha qaaradda Afrika iyo sidoo kalena Afrika lagu gumaysan. bilowga xiriirka labada nin wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. labadooduna waxay xukunka inkastoo isku dhawaayeen waxay qaateen nidaamka hanti wadaagga ee socialismka iyo taageerada midowga Sovieti. Qadaafi waxa uu xataa dhaqaale iyo hub aad u badan uu ku taageeray Soomaaliya ka hor dagaalkii xoreynta Ogaadeniya 1977. wixii ka horreeyay dagaalka, Siyaad Barre Qadaafi wuxuu la garab taagnaa hub, ciidan iyo lacag maadaama Liibiya ay Soomaaliya ka hanti badnayd. Liibiya ayaa Soomaaliya intaas ku taageeri jirtay waa inta uusan dhicin dagaalkii 1977. laakiin isbedelka ugu weyn waxa uu dhacay markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay inay xoreyso Ogaadeniya dowladdeegaanka Soomaalida 1977. tani waxay ahayd barta khilaafka rasmiga ah ee bilowday markii ay Soomaaliya weerartay dalka Itoobiya 1977 iyadoo doonaysa inay soo ceshato dhulka ka maqnaa. midowga Sovieti iyo Cuba waxay go'aansadeen inay taageeraan maamulka hanti wadaagga ahaa ee Mengistu Haile Mariam ee Itoobiya. Muammar al-Qadaafina waxa uu la saftay midowga Sovieti iyo Itoobiya. Liibiyana waxay bilowday inay Itoobiya siiso hub iyo lacag ay kula dagaalanto Soomaaliya. waa saaxiibadii hubkii lacagta isku taageeri jiray oo haddaba midkood uu rabo in mid kale meesha ka saaro. Siyaad Barre wuxuu arrintaas u arkay khiyaano weyn maadaama Qadaafi uu ahaa nin ku hadla magaca carabnimada, midnimada Afrika, haddana la saftay dowladda Itoobiya ee markaasi dhabarka ka toogatay Soomaaliya. khilaafku tan iyo markaas maadaama Liibiya ay go'aansatay inay Soomaaliya gudaha Itoobiya kula dagaalanto, Siyaad Barre waxa uu go'aansaday inuu Liibiya dagaalkeeda asna qaado isla markaana uu shirarka caalamiga ah kula dagaalamo. laakiin sanadkii 1981dii Liibiya, Itoobiya iyo koonfurta Yemen waxay kala saxiixdeen heshiis weyn oo lagu magac daray Aden Bakti. ujeedka ugu weyn ee heshiiskan wuxuu ahaa in la iska kaashado sidii meesha looga saari lahaa nidaamkii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya, maadaama Siyaad Barre markaas uu u guuray xiriirkiisa dhanka reer galbeedka iyo Mareykanka. waa 3 dowladood oo ku heshiiyey inay meesha ka saaraan dowladdii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay, isla markaana ay dalka Soomaaliya ku burburiyaan dhaqaale iyo hub iyo wax kasta oo ay heli karaan. isla markii waxay bilaabeen in ficilkaas ay fuliyaan oo ay howlgeliyaan. dagaalkii labada nin inkastoo wajiyo kala duwanba uu yeesho oo meelo kala duwanba uu soo maray, laakiin isla markii way bilaabeen. waxayna bilaabeen 3 dowladood inay taageero toos ah ay siiyaan jamhadii hubeysnaa ee Soomaaliya. sanadkii 1980kii SNM iyo SSDF Liibiya waxay saldhigyo iyo hub iyo lacag ay ku taageertay, iyadoo sidoo kale taageertay jamhadii SNM ee dhanka gobolada waqooyi. dhammaantood jamhadahan Soomaaliya wax saldhiga kuma lahayn, saldhigoodu wuxuu ahaa dalka Itoobiya, laakiin qarashka hubka iyo lacagta Liibiya ayaa markaas ku taageertay iyo Yemen iyo sidoo kale Itoobiya. 3 dowladood ayaa iska kaashaday. Qadaafi waxa uu rabay inuu ka arguto Siyaad Barre isagoo kaashanaya madaxweynaha Itoobiya Mengistu Haile Mariam. labada hogaamiye ma qarin jirin nacaybka ay isku qabaan. shirarka caalamiga ah gaar ahaan Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika waxay isku weydaarsan jireen hadallo kulul oo cay toos ah.
Qadaafi waxa uu dhowr jeer asagoo khudbad jeedinaya Siyaad Barre ku eedeeyay gacan ku dhigile u adeega Mareykanka, halka Siyaad Barre uu isna u arkayay Qadaafi nin waalan oo xasilooni darre ka dhex abuuraya dalka gudihiisa iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Wuxuuna had iyo jeer ku eedeyn jiray inuu yahay nin waalan, gabdhaha si qaldan u isticmaala, Liibiya burburiyey, Afrikaanimadu aysan ku weyneyn. Sidoo kale Siyaad Barre had iyo jeer wuxuu ereyga uu Qadaafi dhibsan jiray ee Siyaad Barre uu adeegsan jiray waxay ahayd in Qadaafi uu yahay nin waalan oo xanuunsan, oo runtii ereygaasna aad buu u dhibsan jiray. Markii la yiraahdo uu xanuunsan yahay, dad badan oo mucaaradka Liibiya ah ayaa khudbadihiisa soo qaadan jiray, isla markaana dadweynaha Liibiya ku qanci jiray in hogaamiyahooda uu waalan yahay sida uu sheegay hogaamiyaha Soomaaliya. Khilaafka labada nin cirka ayuu isku shareeray. Liibiyana waxa ay sii waday inay taageerto jabhadaha Soomaaliya iyadoo hub u soo marinaysa Itoobiya, waxayna ujeedkeedu ugu weyn ahayd inay meesha ka saarto Siyaad Barre oo reer galbeedka iyo Mareykanka u guuray, isla markaana ka guuray Midowgii Sofiyeeti. Arrintaasna waxay ahayd arrin naxdin weyn oo dad badan aysan ku baraarugsaneen. Khilaafka laakiin waa uu dhammaaday markii nidaamkii Siyaad Barre 1991 uu dhacay, laakiin taageeradii dhaqaale iyo midii ciidanba Qadaafi sii jiray jabhadihii hubaysnaa waxay qayb weyn ka ahaayeen dhibaatadii iyo daldalooladii keenay inay burburto dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Sidaa daraadeed waa inay ogaataa Qadaafi inuu lahaa kaalinta ugu weyn in dowladdii Soomaaliyeed ee Generaal Maxamed Siyaad Barre uu hogaamin jiray oo meesha ka baxdo. Sidoo kale Siyaad Barre laftigiisa ma dab yarayn, oo sidoo kale waxa uu ka shaqeyn jiray in Qadaafi xukunka laga tuuro, isagoo dhowr mar adeegsaday dalal reer galbeeda iyo Mareykanka. Wuxuuna ugu dambeyntiiba cadaawaddii ka dhalatay isna Qadaafi uu naftiisa ku waayay in lagu dhex dilo meel tog ah asiga oo keligiisa oo cararaya. Bal ka war haddii labada hogaamiye ee waaweyn ee xilligaas iskaashan lahaayeen ayna ka shaqeyn lahaayeen midnimada Afrika iyo sidoo kale sidii dalalka ay u heli lahaayeen xasilooni intii jabhadaha isku taageeri lahaayeen.